بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة على رسول الله بعد والسلام يا bulshooyinta Soomaaliyeed meel bay ku kala soonta dal iyo dibadba anigoo meeshaan ka salaam walaalkiin Saalax magaalada Rochester waxaan baryadii soo marinayaa sanad guurihii 64 ka bacdi muxuu ahaa xorriyadii aan ka muxuu ahaa kala wareegnay muxuu ahaa gumeystihii waxaan leenahay wax lagu faano wax lagu farxo wax Ilaahay loogu mahadnaqo sidaa daraadeedna isku wacyi gelino runtii inaan meeshaan u socono in meel ka sii fiican ay tahay waxaan ka dhaxalnay awoowayaasheen oo ahayd dal xor ah maanta laakiin u maleynayno muxuu ahaa meeshii meel ka dar inaan geenay haddayna la yaabi lahaayeen oo dib u soo noolaan lahayn la tusi lahaa waa naga yaqiiqsoon lahaayeen meeshaan joogno laakiin waxaan leenahay weli dad waa joogaan weli hogaamiyaal waa jiraan dad wanaagsan oo fara badanna waa joogaan waxaan u baahannahay tawfiiq ilaahayna waafajiyo dadaal inaan la imaano ilaahayna waxaan ka baryaynaa nabad iyo amni iyo muxuu ahaa mustaqbal horumar leh lagu anfaco jiilka soo socdo oo gaarsiiya meeshan ku naaloonayna muxuu ahaa faqriga ka saaro mugdiga iyo jahliga ka saaro qurunka qabyaalada ka saaro qabiilka ma xumo waxa xumaa qabyaalada marka waxaan u baahannahay 34 sano ka bacdi inaan meesha un taaganahay colaadna maalin meel kasoo iskumayso ummadaha qaarkoodna ay ka bec mushtarayaan u malayso waxaan leenahay ugu baaqaynaa walaalaheen mudug dagaalada ka socdo in muxuu ahaa dagaalada si degdeg ah loo joojiyo ciidamada la kala qaado laga shaqeeyo islaax iyo nabad iyo sidii la isugu imaan lahaa arrinta xaaladan lagu jiro runtii arrin fiican ma aha waxaan leenahay intii usoo halgantay dalkanito waa usoo dadaashay ilaah u naxariisto inta nool oo runtii dadaalaysan waxaan leenahay saaxiib aqligan hala dadaalo wuxuu u baahan yahay weli muxuu wax badan laga qabto waxaan sidoo kale u hambalyeenayaa una dabaaldegaynaa sanad guurada muxuu ahaa Mareykanka xorriyadda qaatay 4 Luulyo ayadana leenahay hambalyo marka dabaaldeg wacan dhammaan waxaan leenahay sanadka dambe barwaaqo bashbash iyo baraan inuu Ilaahay nagu gaarsiiyo waxaan u baahannahayna muxuu ahaa horumar waxaan u baahannahay hogaamiyaal daacada Ilaahay ka cabsanayo waxaan u baahannahay dadkan ka saaro mugdiga jahliga waxaan leenahay hala dadaalo horna loo socdo barakallahu fiikum